barnaamijkan gaarka ah ayaa waxa uu yahay mid ku saabsan booqashadii uu ku soo gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar qoraaga Soomaaliyeed ahna filim sameeyaha soo saaray filimka Cali iyo Coorala ee aadka loogu daba dhacay Cabdimaalig Cawil Isaaq. Cabdimaalig ayaa booqasho ku yimid Masar iyadoo dadka reer Qaahirana ay fursad u heleen inay daawadaan filimkan oo uu director ku sheegay in Masar ay tahay meeshii ugu horeysay ee Afrika ama Carab ah ee lagu soo bandhigay. daawadayaal muuqaalkan aad u jeedaan waa soo saare Cabdimaalig oo dhaxmaraya wadnaha magaalada Qaahira isagoo ku dalxiisaya daafaha wabiga Niil goobaha ay ku badan yihiin dalxiisayaasha gaar ahaan qasri Niil. قصي صبحي كنتاي قيمها جعلكنا قيمها جعلكنا قلبي وحيلا قيمها جعلكنا قيمها جعلكنا قلبي وحيلا قاهرة 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 تلقى التقي يا كلام ورشي.
booqashada uu cabdimaalig ku soo gaaray dalka Masar ayaa ah midii ugu horeysay oo uu ku yimaado dalkan waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay Masar bahda Safi Films oo suurta geliyay inuu soo gaaro soo saaruhu magaalada Qaahira ee dalka Masar cabdimaalig oo ka hadlayay sida Qaahiro uu arko ayaa yiri sidan waxaan ku faraxsanahay inaan caawo halkan maartay ama galabta halkan aan joogo magaalada maartay Qaahiro oo maartay runba fiican magaalo aad i cajab gelisay waxaan halkan ugu soo dhaweeyay maartay dhalinyarada maartay ama shaqaalaha Safi Films oo uu ka mid yahay maartay Maxamed Cabdow Jibriil iyo maartay Abdallah Arts oo maartay wiil hadda Soomaaliya u soo kacay oo maartay farshaxanka ku fiican runba fiican filimka Qaahiro aad ayay maartay u soo dhaweeyeen Soomaalidii intii maalintii dhalinyaro gabdho iyo wiil aad u badan waa maasantii soo dhaw sidoo kale dhamaan bahda Som TV oo ku sugan caalamka meel kasto hambali ayaa leenahay anagu isku duuban oo ah Safi waxaan rajaynaynaa in hadduu Ilaahay yiraahdo oo fursado kale oo qaali ah halkan ay nagu soo boqo filimka ayaa wuxuu mid soo jiitay dhamaan qulubta dhalinyarada Soomaaliyeed oo daawanaysay xataa waxa halkaas ku qabtay gabdho Soomaaliyeed oo markaas ilmeynay kadib markii filimka daawadeen sidoo kale waxa jirta in ay dadka ay dhahaan waba nagu gaabto waqtiga filimka sida darteed waxa u baahnaa in markale loo dhigo malaysaa dadka inuu ku yaraado markay fiirsadeen waxa moodaaba inuu la yaraado filimka oo la gaabto nin walba wuxuu ku leeyahay goorma lagu soo celinayo su'aashooda ugu horeysa waa inta ruuxaantii ka soo maartay shaqada filimka halkan keenay aniga ahaan waxay ahayd markii igu horeysay oo aan Qaahiro imid waxaan ku faraxsanahay maanta inaad soo tusteen meelo badan oo taariikh ah sida hadda hotelkan aan hormareyno oo la yiraahdo Xayaat Hotel oo shirkii maartay Soomaaliyeed nabadeynta Soomaaliyeed sanadkii 1993 sanadkii aan hotelka lagu qabtay marka waa wax meelo badan oo taariikh ah maartay sida maartay waxaan soo boqonoo kale music firxoon marka ruuxaantii maartay dhalinyaradan halkan deganaa culture-ka Soomaali waxa walba yaqaanaa inaynu soo tahay goobo badan oo maartay taariikh aniga ahaan cilmi ayaa maartay ii kordhay taariikh ayaa ii kordhay xasuus ayaan maartay halkan ku sameynay waxaan rajaynayaa inaan maartay Qaahiro waxa way mamaan Maxamed cabdimaalig ayaa waraysi kala yeelanay filimkan Cali iyo Cawrala oo uu halku dhaga ugu dhigay kursigu qiilma leeyahay bahda Safi Films oo soo agaasintay socdaalkan gaaban ee soo saaraha ayaa kaalin weyn ka qaadatay inay suurtageliyaan booqashadan ayagoo had iyo jeer isku hawla qabashada barnaamijyo badan oo reer Qaahiro muhiim u ah waxaana ugu dambeyntii cabdimaalig uu u mahad celiyay madaxa Safi Films Jibriil Maxamed Jibriil filim qaadi Maxamed Cabdow Abdallah Arts iyo dhamaan bahda Soomaaliyeed ee Masar ee isku howshay runtii magaalada Qaahiro waxaan ka aaminsanahay fikrado kale magaalo waxaan u maleeyahay wadamada maartay tabaalaysan oo hoose ay ku jirto laakiin waxaan ka maartay meel taariikh ah dad badan oo Soomaali walaalo Soomaaliyeed waxa kala qalanaya waa ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee akshaan aan tawada tawaada kasoo waxaan oran karaa waa talaabo cusub oo ay qaatay masraxa Soomaaliyeed qaaday xalka Soomaaliyeed qaaday waxaan leeyahay maartay yani qof Soomaaliyeed oo soo masuuliyad saaray ana dawlad ama mujtamac kale u galeen ku guuleystay inuu soo saaro filim yani cusub oo la soo qaadi kara maanta